السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaa wada fiican tihiin mar kale ku soo dhawaada videogan oo aan kaga hadli doono sida loo galo labkan waxa waaye meel lagu tijaabsho sheeg meel aan u isticmaali jiray inaan ku tijaabsho waxyaalaha shaqada ku taxalluqo iyo shahaadada marka aan isu diyaarinayo inaan ku practice gareeyo sheeg maxaa la dhihi jiray iyo waxyaalaha imtixaanka uu ku imaan doono. marka labka waa lab dhex yaalo guriga laakiin laga soo gali karo meel kasto oo qof adduunka macnaha qofka internet haysto. marka videogan waxaa kaga hadlaynaa insha Allah sida loo galo wax yarna waxaa ka taataabanayna waxyaalaha loo isticmaalo. kow horta labka muxuu yahay? labkan wuxuu ku dhisan yahay Cisco iOS. marka technology-ga uu isticmaalayo waxa waaye Cisco iOS oona loo isticmaalo switch-yada iyo router-rada iyo firewalls-ka ay Cisco samayso. video kale taa jiro aan kaga hadalnay switch wuxuu yahay, router wuxuu yahay iyo firewall-ka wuxuu yahay. marka waxaas waa kombiyuutaro waxayna leeyihiin operating system gaar ah oo ayaga maamulo sida kombiyuutarka Windows-ka uu u leeyahay operating system maamulayo qaabeenta iyo kala habeenta kombiyuutarkaas dhexdiisa macnaha iyo hanaanka fileska loo maamulo iyo sidoo go'aan u gaaro kombiyuutarka iyo waxyaalahaas. marka iOS waxay u taagan tahay Internet Working Operating System wuxuu maamulaa routerada iyo switchada iyo firewallska ay Cisco samayso. kuwa kale jiro ee maamulaan iOS-ka oo noocyo kale u sii kala baxo. waxaa jiro iOS XR iyo iOS XE. marka labkayga laakiin kuwaas ma laha weli, mustaqbalka waa lagu dari doonaa insha Allah. laakiin hadda iOS-ka unba ka heli kartaa labkan. yaa loogu talagalay labkan waxaa loogu talagalay dadka ardayda ah raadsanaya shahaadada la yiraahdo CCNA. marka iyo injineerada ku shaqeeyo qalabka Cisco oo rabaan meel ay wax ku tijaabshaan laakiin aan rabin inay shaqadooda ay wax ku tijaabshaan. sababtoo ah kambaniyada qaarkood waxay rabaan inaa wax tijaabisid laakiin kuma siinaan meesha ku tijaabin lahayd. marka waa inaad adiga banaankaada ka raadsato meel inta aad ku soo tijaabiso code-kaada iyo macnaha configuration-kaada aad qortay meel kale inta ku soo tijaabiso markaas inaad ku darto sheeg switchada iyo routerada iyo firewallska uu company isticmaalay. laakiin ma rabtid meel isticmaal ku jirto inaad wax ku tijaabiso. sababtoo ah tijaabada macnaheeda waxa in la fiirsho wixii inay shaqeynayaan iyo inaysan shaqeynayn. marka kuma ogaan kartid meel aad rabtid inay shaqeyso markasto. marka waxaa loogu talagalay ama engineer rabo meel uu wax ku tijaabsho ama arday shahaado raadsanayo. waxyaalaha lagu practice gareyn karo labkan waxa waaye routing-ka waxaa ku practice gareyn kartaa protocols-ka la yiraahdo BGP iyo OSPF iyo EIGRP iyo wixii la mid ah. IWM protocol ma waa iyo wixii la mid ah oo la soo gaabshay. iyo switching-na waxaa ku practice gareyn kartaa VLANs iyo spanning tree iyo VLAN trunking protocol iyo wixii ku taxalluqay switching oo dhan. marka sida labka loo galo marka waxa waaye horta waxaa ka heli kartaa website-kan. waa website yar oo aan guriga ku diyaarshay. marka haddii aad dhankan fiiriso waxbarasho waxaan kaleeto waa iska software yaro iyo waxaas, laakiin waxbarasho hoosteeda waxaa garan kartaa sida loo galo labka CCNA. horta waxaa soo dejisanaysaa programkan la yiraahdo PuTTY. haddaad deji taabatid markaa install garaysid PuTTY ka dambe meeshaan waxaa gelinaysaa IP address-kaas. waxaa gelinaysaa 184.180.121.146. dotiskana hayloobin dots yaryar baa ku jira halkaas 184.180.121.146. markaasna protocolkana waxaad dooranaysaa
ishek macnaha TCP protocolka ishek portka isticmaalayso waa telnet waa dekada ka soo degaysa ma aragtay oo kaliya loo golaya in laga soo galo gurigaas macnaha labka waa port 23 programka la yiraahdo telnet markaasna open baa leedahay markaas waka passwordka waxa waaye lab macnaha ma iga raali ahada usernameka waxa waaye lab passwordkana waxa waaye kelmadaas u jeedaan oo nambarada iyo xuruufta isku jiro marka gashid sidaan buu ekaanayaa waxaas baa helaysaa marka aan tijaabino ishek marka hakana username waa lab passwordna waa kelmadii ayada aheed la isku afgartay marka waka hadda waxa ku dhex jirnaa labki so commandiska aad gelgelin kartid waxa kamid ah show ip route waxa waaye kelmadaas hadda itus routiska ku jiro dhan routing tableka waxaan marar kale ka hadli doonaa oo qeexi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo laakiin hadda mashiinta waxa ku tiray itus meel kasta route-ka ku gaari kartid marka wakaasa routiska wuxuu ku sheegayaa meelahay ka kala yimaadeen kan wuxuu ku helay OSPF soo ma jeedid meeshaan hadaa fiirisid wuu qeexayaa ooda waxay u taaganta OSPF soo ma jeedid haddii marka b haday qaarkood ku qornaan lahaydna waxay u taaganta BGP macnaha protocolka u soo gudbiyay waaye oo uu ka helay informationkan marka wakaasa routiska ugu badan oo hadda ku jira labka waa OSPF because backbone-ka route labka waxay ku dhisantay OSPF laakiin waxa jiro isheega programme kale oo badan oo ka dhex shaqeynaya misaal hadii aad tiraahid isheega show IP BGP VPN v4 all haddaad tiraahid itus routiska aad ka heshay BGP laakiin BGP oo dhan ma ahane nooca VPN v4ka routiskaas itus haddaad tiraahid markaas waka waxyaalo kale oo badan oo hayaa soo ma jeedid marka waxyaalaha kale waa ku practice garayn karto waxaa ka mid inaad fiiriso routeradan dhan marka routeradan waa u jeedaa waxaan dhan waa routera kale oo war soo gudbinaya soo ma jeedid hadda routerkan IP addresskaas leh waxaa laga helay macnaha routekan waxaa laga helay routerkan IP addresskaas leh 5 maalmood iyo 11 saacadood ka hor wuxuuna ka soo galay interface-kaas soo ma jeedid marka hadda waxaan fadhinaa labka iridiis marka wax kasto labka uu imaanayo waxay ka soo galayaan halkan jid because waxaan fadhinaa qolkii ugu horeeyay ee labka laakiin haddaan aadna hadda kan waxaan samayn karnaa telnet waka username waa lab passwordkana waa passwordkii website-ka ku jiray waka waa router 1 uu igeeyo soo ma jeedo waa router kale so haddaan dhaho show IP route midkan waxa waka meesha uu ka helayo informationka way kala gedisan yihiin soo ma jeedid qaar wuxuu ka helayaa 01 qaar wuxuu ka helayaa 00 soo ma jeedid haddana wuxuu ka helayaa router kala gedisan oo address kala leh haddii marka aan u gudubno routerkan uu router 1 uu ka helayo informationka haddaan u gudubno asaga oon sii galno waka lab password haddana aan dhahno show IP route asagana waka information kala gedisan uu helaya laakiin arag information qaarkood wuxuu ka helayaa 2 jid soo ma jeedid wuxuu yiri hadda IP addresskan waxaan ku gaari karaa anoo sii maraya routerkan laakiin routerkan kalena waa u sii mari karaa waa 2 jid baan u mari karaa buu leeyahay soo ma jeedid marka waxa garanaysaa hadda routerkan inuu meel dhexe fadhiyo marka waxaan rajeynayaa inaad wax yar ka faa'iideysatay videogan
waxaanan idin rajeynayaa khayr fara badan waxaan rabay inaan idin sheego website-ka ii sheeg addresskeeda of course arrintaas waa muhiim website-ka addresskeeda waa kana waa waxkastohosting.com waxkastohosting.com waa website-ka marka haddaa waxkastohosting.com aadid page-kan baa imaanaysaa markaasna raac tillaabooyinkan meeshaan lagu qeexay. Assalaamu calaykum.